colaad inta la ogyahay dhacdooyinka isxigxigay ee ka dhacayay gobolkani saameyn dhanka isku socodka guud ahaanaya waxay ku yeesheen gobolka iyadoo ciidamada amniga ee dalkani Kenya goob walba lagu arkayo isla cabsi fara badanna laga qaba in dhacdooyin isxixiga ay ka dhici karaan iyadoo xilliga bisha barakeysan lagu jiro deegaanada qaarna roob ay ka da'een oo dhacdooyinkaasi dhammaan xarakada al-shabaab ay horaan sheegatay in ay tahay cidda ka dambayso inta u dhaxayso Garissa ilaa iyo deegaanka Liboyo kulan waxaa dhooban ciidamada militariga dalkani Kenya iyo waliba ciidamada kale ee booliiska laamaheeda kala duwan iminka aan kula hadlayo waxaan ku suganahay xarada qaxootiga Ifo isla cabsi dareen dhaqdhaqaaq ayaa laga dareemayaa guud ahaan dhanka ciidamada militariga iyo booliiska ayagoo markaas isku dayay in ay xiraan wadooyinka soo gala xariyaha qaxootiga iyo waliba ama ka baxaba ay xiraan si ay uga hortagaan waxay ugu yeereen qolooyinkan qulqulatooyinka argagixisada ku ah dadka gobolkan qaraxyada ka geysanayo inta isku xirto Liboyo iyo Dadaab ka hortagayo waa gartay waxa kale oo maqlay in banaanbaxyo ay ka dhaceen xariyaha qaxootiga maxaad nooga biirin kartaa dareenkaasi guud ahaan waa uu jira oo banaanbaxyadaasi waa ay ka dhacayaan halkan oo ay ku diidan yihiin dadka shacabka qulqulatooyinkaasi magaalada Liboyo maanta ganacsigeeda guud ahaan waa uu xiran yahay waxaana laga dareemayaa culeys dhanka zaxmad dadka isku soo baxeen iyadoo bil barakeysan oo Ramadaan lagu jiro dadku waxay cambaareenayaan tilaabada dawladda aysan ka qaadaynin waxay ugu yeereen kooxaha ku qowleysatada ku sugan inta u dhaxaysa Kulan iyo Liboyo oo qaraxyo kala duwan ka geysanaya colaadta la socoto inta badan dadka iminka dhimanayo waxa weeye dad deegaanka ka soo jeedo qaraxyada loo geysanayo askar ha ahaadaan saraakiisha shalay hay'adda adeeso u shaqeynayay waxay ahaayeen dad deegaanka ka soo jeeda marka waxaad moodaa in kacdoon dhanka bulshada iminka uu ka jira halkan dadkuna ay diidan yihiin in dhacdooyinkaasi ay sii fidaan dawladda Kenya iyadu ma ka hadashay arrimahan ugu dambeeyay qaraxyada iyo ciidamadan booliska ee 20 gaari ee 37 la soo dhaafay dhintay iyo 30 qof ee maaragtay dhaawac uu ka soo gaaray dawladda Kenya wax war ay ka soo saartay dawladda Kenya wax war ah oo waafi ay ka soo saartay tilaabada iyo waxa la qaadayo ma jiraan ilaa iminka marka laga reebo in dawladdu ay isku bedeshay in ay dhulka hawdka helicoptera iyo ku isticmaalayso ciidamada lugta oo isku dayeysay in qaab walba oo wadooyinka looga xir lahaa kooxahaasi ku dhumaalaysanaya marka laga reebo waxaa jirta dad ay dawladdu ku tuhumaysay in xiriir dhow ay leeyihiin xarakada al-shabaab ay gacanta ku soo dhigtay walow ay u badan yihiin dad ganacsata oo caan oo gobolka laga yaqaano oo dadka gobolka ka ganacsan jiray balse ay ku tuhunsan tahay in ay xiriir la leeyihiin balse dadka gobolka ayaa jadabka ku dhufanaya arrimaha noocaasa oo waxay leeyihiin ma aha in dawladdu ay ku soo noqoto dadka ganacsatada waxa loo baahan yahay in ay ka hortagto waxay ugu yeertay kooxaha qowleysatada marka dhanka siyaasiyiinta shirar jaraa'id oo kala duwan ayay ku qabanayaan Nairobi Garissa ay ku qabanayaan waana laga hadlayaa laakiin ilaa iyo iminka ma jirto wax gunaanad oo dawladda iyo siyaasiyiinta gobolka isla gaareen